munaasabadda 26 Juun ayaa habeenkii xalay ahayd lagu qabtay barxadda hore jaamacadda Timacad ee magaalada Gabiley isla markaasina ay ka soo qayb galeen xubno kamid ah golaha wasiirada Somaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo oo qaashi waxgaradka gobolka Gabiley iyo dadweynaha aad u tiro badan iyo xubno kamid ah cutubiyada ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana halkaasi lagu saaray calanka Jamhuuriyadda Somaliland saacadu markay ahayd 12 habeenimo iyadoo halkaasina ay ka baxayeen codbaahiyaal ay ku xidhan tahay sareeyo manusqaano kana kasiib kana ka saar taasi oo laga joogo maanta 56 sano ka bacdi in qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uu dabaaldego munaasabadda 26 Juun maayarka degmada Gabiley Amiin Cumar Cabdi maayarka degmada Togo Jaale barasaabka gobolka Gabiley ayaa ka sheekeeyay taariikhdii qarankan u soo maray soo noqoshadiisa farxaddan maanta isku yiraahdo waa 26 Juun waa dikasoo wareegtay 56 years dikasoo wareegtay aniga ka tirsan waxaan ku soo gabagabanayaa maray tageen Allah hadda mar labaad sii tageen mar labaad in Soomaaliya ay tagto waa xaaraantii nabiga inta calankan la taagay wuxuu ahaa calankii ugu horeeyay la taago calan Soomaaliyeed wuxuu ahaa dalkii 15aad ee qaaradda ballaadhan aynu arkano xornimada qaatay arkana dhamaantood calankeennaasaa ka horeeyay qaranka Soomaaliland waa qaran jira horena u jiray maantana jira in haybsan maayaan 26 Juun waa maalintii Jamhuuriyadda Somaliland ay xorriyadeeda ka qaadatay gumaysigii Ingiriiska kala dhex maray inagoo ogeyn ayaa maanta haddana waxa la leeyahay indheera waan u diraynaa waxaan leenahay wixii hore wax ka daran baan diyaar lanahay wasiirka wasaaradda warshadaha Jamhuuriyadda Somaliland Shacayb Maxamed Muuse iyo wasiirka wasaaradda maalgashiga caalamiga Xuseen Aadan Ciige ayaa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka jeediyay xafladan qiimaha leh ee lagu weyneynayo habeenkii aynu gumaysiga Ingiriiska ka qaadanay soo qayb galay dhamaantiin haddii aad mahadsantihiin biyadii halganka xorriyadda dhaliyay ee halkan laga sheegay runtii waan u mahad celinaynaa wuxuu leeyahay Soomaali calan tagta saakay noogu horeysa halkii calan laga taagay sidii dadkii ugu horeeyay sheegay inaga yahay waxa kale oo gabagiisa ku jirta ka 80 sabaan calankaynu sugaynay 80 sabaan waxa weeye waa 80 sano oo ina gumaysanayeen Ingiriisku 26 Juun qiimo badan buu leeyahay nasiib daro qalad siyaasi ay la galay xamar inagoo waxba la saxeexan heshiis la gelin ayaa waxay nageeyeen dareen walaalnimo iyo dal jacayl aan doonayna Soomaaliyeed namadayno kaminaan heli waxaynu mudnayn xumaan iyo mutaqaanaa xaqiraad iyo cadaalad daro ayaanu kala kulannay dibba loo maagay waxa la isweydiiyay war waxaanu doonaynay iyo waxay doonayeen may kala duwan maynaan Soomaaliyeed wada doonayn maynaan wada doonayn dareenka siyaasiga iyo ka wadaniyada iyo ka dal jacaylka reer Somaliland iyo reer Soomaaliya aad bay u kala duwan yihiin inagu dalkaynu jecelahay wadaniyadaynu jecelahay waxaanu jecelahay inaynu wax noqono markii ay dal wadaninimadu xamrina geysay kelmad baa la yiri way qaldameen kabacdina kelmadaasi ilaa maalinka maanta way haystaa waxa la qaldaamiin haddaan hore u qaldanay dib u qaldamay mayno ilaahay baan qaldamayna kamid yihiin Maryan Cabdillaahi Suldaan Timacad Safiya Waadan Micaad iyo qaashi waxgaradka gobolkaasi ayaa iyaguna ka waramay taariikhdii ay lahayd 26 Juun waxaan ku dardarayaa Somaliland inay xasuusnaato gabayadiisa ay wax ku qabsato ay wax ku qaadato oo iyaga loo soo hadgabay dhalinyarta iyo hortaagan iyaga loo soo hadgabay iyaga loo soo dhintay marka la leeyahay hebel baa mujaahid ahaa waa Soomaaliland mujaahid baa isla inuu loo tumay isticmaal aqalka shanta taagtay tiriigiisu dhacay maxaa loo tagiwaa xamar bay doonayeen xamar waynu ku darsanay gudeen xornimadiina ma anaga u baahnay kaaryoonada baa ku keenteen xafladan aynu isugu nimaday quruxda badan leh ee qiimaha leh ee ka turjumaysa maalintii aynu ka qaadanay Ingiriiska xornimada 1960 sida aanu u helay iyo jidka loo maray iyo sida aynu ugu guulaysanay calan Soomaali leedahay oo la taago maalintii laga taagay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Somaliland magaalada hadduu wado uu agaasimo
uu rogo abaarood kana way ogootaa haddii ilaahay noogu wada arkayna waxa weeyaan oo saa inoo socoto waxaan ka rajo weyn inaynu gaadhayno ictiraafka ay sheegayno maalin waxa weeye maalin ugu qiimo weyn ina soo marta maalintaan calankeennii ingiriiska ka qaadanay dib inoo soo maray dalka waana maalin cad oo wanaagsan oo nin walboo Somaliland kuwii yaryar kuwa ayaa waaweyn ay maalintaa hoosta ka xarino seexan inaan nafsi daafta seexan dunuubta kuwii xambaartay wataa xamardaadku qaaday duqayn iyo weerar gaabo masiibo wataa ka darisay dabadiina halkaasi waxa ay ciidamada qaranka Somaliland ku saareen calanka Somaliland iyagoo halkaasina shalaan sharafeed iyo madaxda iyo calankaba waa nimcaan dheeg baahin TV qaranka Gabiley.